بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo ah maalinimo isniin ah kuna beegan 25 bisha sagaalaad sanadka 2017 waxaa noo suurta gashay inaan waraysi hooygiisa magaalada Muqdisho kula yeelano caaqil Sheekh Axmed Sheekh Muxyidiin Sheekh Axmed Heraab oo kamid ah rugcadaaga siyaasadeed iyo rugcadaaga dhaqanka Soomaaliyeed ee ka soo haray odayaashii leegada ee sanadihii afartameeyadii iyo kontomeeyadii ilaa lixdamaadkii ku guuleystay in ay taagaan calanka Soomaaliya gaar ahaan 1960 caaqil Sheekh Axmed Heraab waxa uu gacanta ku hayaa teesare ama aqoonsigii la siiyay oo dawladii daakhiliga ee xilligaas jirtay ay siisay sanadkii 1958 waa taariikh 20 bisha 11 1958 sida idin muuqata caaqil Sheekh Axmed waxaad nooga warantaa bal ujeedada maanta aad noogu yeertay oo aad rabto in aad shacabka la wadaagto bismillah waxaan idinku yeeray oo rabaa inaan shacabka la wadeego markii odanku cadaayo shayba aan ahay waxaan idinku yeeray oo rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaago kuma ay jiriyo hawlaha isdhacyaa amni xuma ay jirto nabadgelyo xuma ay jirto dawladda maamul goboleedka khilaaf oo jiro nimanka la yiraaho shabaab iyo dawladda khilaaf oo jiro inaan waxa soo dhanba wixii fikirkeyga ka jeedsho oo dawladda iyo u baaqo nimanka la yiraaho maamul goboleedada inay mataqaanaa alxamdulillah is afkartaan isu yeeraan ismaqlaan haddana rag laagadi ka nool oo berga ruux ku jiro meel ay ku gambadaan ma laha laaga soo baxdo oo dawladda iyo maamul goboleedadana ka dhaxadalno shabaab iyo dawladana ka dhaxadalno lamadooraba kamid maahin rugcadaay odayaal soo heraana wees ogtiin xamaraad ka buuxdeen goboladaad ka joogtay waxaan idin leeyahay in laaga soo baxdo oo meel ay ku gambata aalin aan beriga idinku yeeray alxamdulillah arrintaasaan idinku yeeray beriga way laagadu marka ay soo baxayso aad u baaqayso odayaasha da'daada ah ma waxaad saluugteen sida hadda wax u socdaan oo waxaad rabtaan kacdoon kale oo aad wax ku bedelaysaan waxa hadda taagan tala cusub aad ku jeheynaysaan waa kacdoon ma qabnaa waxaan qabnaa nabad in si nabad lagu raadi lahay kuma anu ka aadaan aan ka qabin mucaaradku nagama qabo muxaafadkuna nagama qabo kuma aan dhexdhexaad ka nahay aan waxaan rabnaa inaan nabad Soomaaliyeed jirino 11 sano ayaa xabadu ay ka socotaa shabaab iyo dawladda dhexdoora waagana jid furan oo lagu dhiiran yahay ma jiro meel xawaay alxamdulillah rabbil caalamiin nabadaaru sugantaa ma jirto 9 sanayna dawladdaanu ay dhisan tahay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 9 bilood ay joogtaa 9 bilood welina wada furan ma hayno amni sugan ma hayno inaan beriga inaan iska hurdino inaan guryaha seexan oo laaga soo baxdo oo nabad Soomaaliyeed jeriso oo midnimo Soomaaliyeed jeriso oo wada jir Soomaaliyeed jeriso ayaan ma taqaanaa berigaan ka hurdi waayo guriga soo baxay ragga igu garaada ah oo 9 sano iyo 85 iyo ka gudbana oo laagana waxaan idin ka codsanaa inaad soo baxdiin beriga meel la seexdaa ma jirtee way maxaad qabanaysaan marka laagadu isu soo baxdo maxay qabanayaan hadda waxay qabanayaan nabadgelyo ay ka bilaabayaan waxay u jeedayaan mucaarad iyo muxaafad ay u kala dib qaadayaan waxa dawladdan la hadlaynaa shabaabaan la hadlaynaa amniyaan jariynaa nabadgelyaan jarihaynaa dhiig la daadshaa cidna uma roona waxaa xawahay 27 sano Maxamed Siyaad ka baraysa xabadaa socotay Soomaalina inteed waa ka badan tahay oo 9% ma dhalinyara wax ilaahay wadana xabad ku dhamaamayaan ee nabad lagu dhameeyo oo nabad jerino oo dawladda ka jerino oo shabaab ka jerino oo leega soo baxdo saasa ma taqaanaa fikirkaasaan soo jeediha way adiga hadda dhawaaqay oo kamid ah odayaashii leegada inta kale ee nool ee adigu aad taqaano inkastoo laga yaabo inaysan badnayn raggii xilligaaga ahaa wax xiriir ah ma la samaysay mise haddaad warbaahinta ka hadlaysaa oo keliya aniga xiriir lama samaynin laakiin ragaan aqaanaa ku jira iyo kuna yaqaan laakiin uma baaqin haddaan salleega iri inaan kala falli yeelaan diidaya xamaray joogaan gobolladay joogaan waa ismaqlaayaan raggi laaga ah waa is yaqaanaa raggan dawladda ku bilbil dhex ku milqino oo laaga ah madax bannaan oo shabaabna og yahay shacabkuna og yahay waxaan rabaa inay soo baxaan nabad jeedino aniga hadda waxaan soo baxaa waa nabad yaa ku xil saaray ma la dhihi karaa ama ma iman karaa tuhun ah Sheekh Axmed muddo joogay
kumana dhawaaqi jirin arrintan dhibaataduna muddo dheeray socotay waxbaa ka qaylisiinaya oo waa nin laga dhex hadlayo haddii la aamino oo dadka qaar ay is yidhaahdaan maxaad ku qancinaysaa waxaan ku qancihayaa yaa ayuhaladiina aamanuu taqullaha ilaa iga baqowle wakunuu maca saadiqiina rumaan sheegaa waxaa igu wallaahiya oo igu bilaahiya oo soomaaliyeed waa ii jeediine dowladda aadan cabdulla ismaaciil cabdirasacid markaan inaanan dowlad una shaqayn xiriirna la yeelan mushaarna ka qaadana ilaa hilib xaaraamiga ah oo xabba dowladuugama rabo hal dowladuugama rabo wax igu aadaa ilaahay siiyey amniyaan rabaa soomaaliyaan rabaa mucaarada muxaafid dalya dibad inay isu timaad xabadda la joojiyo xabadan dowladuuga rabo odayaala ka rabo garabka laga taabto hudheelada lagu beelaa waa jiraan sida la sheegayo anigu dowladda xabad ugama rabo mana heebsan doono wax shaksiya heebsan maayo wax danguuda maahine wayahay arrinta ku aadan maamul goboleedyada iyo dowladda oo aad soo hadal qaaday ka waran iyada maxaad ka tiri maamul goboleeda kamaba hadlinba oo haddaanan baaq u jeedsi aniga maamul goboleeda haddaan afkooda ku yidhaheen si buuxda unu waa qaraab tegayna boorsada ayaana qaadayna walaa boorso lagu keenayo dad waxu tari maayaane magacay dumaaya haddii maamul goboleed walba boorso qaataan dowladdana walba boorsadi la maqneed waxaan ceebahayn oy keene waxaan naqaynaa qaxooti waxaan diidaa soomaaliyaa qaxootiya soomaaliya isku reed yaace soomaaliyaa mataqaanaa carab u kala dhuumad ceebtaasaan diidaa oo cumrigeena aliisiya 90 sanaan muga halgu iiga dhimanya haye waxaana waxay u baahan yihiin qarash ama lacago haddii aan usoo noqono baaqa nabadeed iyo ololaha leegada lacagahan xageed ka keenaysaa dhaqaaqa kow ah yaa idin dhaqaajinaya gaadiid iyo wax walibaa loo baahan yahay waa mahadsantahay iyo gogol fadhi safaro badanaa jiraya yaad ku tashan tihiin safaradaas lacagtaas waa la helayaa soomaaliya taajira niman taajireen ahaan qabnaa niman nabadda inay ku shaqaystaan rabaan qabnaa ayahe alxamdulilah anu koonada dowladda ka tuuginaan heli karnaa annaka leegaha dhexdaana ka heli karnaa wax la wey karaa ma jiraan haddii loo soo baxo inta nabadda rabta oo soomaali rabta oo ceebta diidaysa oo midnimo iyo walaalnimo iyo dowlad soomaaliyeed oo loo simayaha rabta intaasaa lacagta baxaysa lacagta wax la wey karaa maba jiraanba wayahay waxaad ka qayb gashay laftaadu shirar dib u heshiisiineed oo weliba mararka qaar ahaa shirar siyaasadeed isu bedelay wejigii labaad sida shirkii carta oo kale oo dowladaha kumeel gaarka ahi ay ka soo bilowdeen ilaa intaas iyo kasii hor xabaddu way socotay dagaaladu way dhacayeen waa la dhimanayay waa la qaxay maxaad qabanayseen adiga iyo ragga kula midka gaar ahaan adiga maxaad mar hore arrintan ugu dhaqaaqi weydeen anigu hadda ka hor ma cabanin haddana waxaan ku cabaha waa leego waxaa ruma oo runtaa ah in xabadaasu socotay waxaa jooga xildhibaano carta ka soo galay waagana ku jira baarlamaanka golaha shacab ku jiraa jira markay aadi lahayeen gobolladana amba hudheeladay seexdaan amba waxay aadaan kenya asay seexdaan waxawaaye 4-5 baarlamaanayna xildhibaana yihiin waanay maqlayaan waana is og yihiin war soomaaliyey fadhiga ka kaca haddaan laga kicin kuwa 5 baarlamaan xildhibaanada ah maxaad ugu dheganta iyaga mase talaad siinaysaa nimankaas talaan siiyo haya nimankaas waxaa la rabaa hadday iyo meel wada seexdeen haw ahay aqal hooseeya aqal sare iyo maamul goboleedyada nimanka laga soo doorto amba xildhibaan wasiirada 1 milyan haddoo wasiir xildhibaan naqday ee mushaar rabiyo war yaa shacabkii u maqan oo yaa beerihi u maqan oo badda yaa u maqan oo barxooleed yaa u maqan ee baarlamaan yaa nin walba baarlamaan jaaka xirta nin walba oo yiri anigu xildhibaan ahoo shaqeey maayo mataqaana hal hul dheel jeefa iyo hal nairobi uroora hal safar uroora ay naqdeen war shacabkii yaa u shaqeeya majin yaa u shaqeeya shacabka oo nin gadaal ugu naqaahu jirin hawaay gobolladii waxaad ii sheegtay hadda ka hor inaad 1956 dowladihii daaqiliga ee cabdullaahi ciise aad la soo bilowday shaqada la soo bilowday goormeed ka tagtay shaqada marka oo shaqo dowladeed ugu dambeysay dowladeed waxaan ka tegay dowladda aadan cabdulla cismaan iyo cabdirashiid cali markaa anigoo aanan inqilaabay cabdirashiid cali sharmaake iyo aadan cabdulla dowladoore anigoo deegaanka madax ka ah oo mushaar qaadha cabdullah waxaan madaxweynihi ahay mataqaanaa maxamed siyaad barrowna inqilaabay baarlamaankii iyo golihii deegaanka wixii oo dhammo qururub siisayay maalintaas kadib anu dowla agteen mana tegin aduu raggi la xirxiray ma gashay inqilaabaan kamid ah kacaanku raggu xirxiraad gashay maya lama xirin anuka dowladii hoose lama xirin baarlamaankii koraa la xiray haye way aragnimadaada adigoo aan dhinac laga aqarsan karin ama taladaada odaynimo oo weliba dadka Soomaaliyeed iyo noloshooda
iyo diintooda iyo horumarkooda ka hadlaya taladaadu maxay tahay sheekh axmed aniga taladaydu waxa waaye waa in nabadgelyo la jirsho aniga haddaan runta markaan sheego rarka maamuleynta ah oo haddaan baarlamaanka ka buuxan ba dowladda joogaa teestaranka dhalin kuma dhamo oo kontonka siyeedii hon leega ka qaadha dhalin kuma dhamo oo odac iraahaanahay odac iraana waa lala tashadaa aniga taladaan soo jeedaa waa midnimo Soomaaliyeed waa walaalnimo Soomaaliyeed waa dadnimo Soomaaliyeed waa dowlad Soomaaliyeed waa Soomaaliyeed oo mucaaddam muxaafid heshiisa waa inaan la ceeboobino ceeb Soomaaliyeed aan carrada lala qaadin saas waay aniga maslaxa jerisaana aniga hadda muga waxaan isiri khaatumaad joogtaa Soomaali nabadan ku baaqo waaya waad mahadsan tahay caaqilka sheekh axmed sheekh muxuudiin sheekh axmed hiraab oo ah rugcadda dhinacyada dhaqanka iyo siyaasadaba ah oo 1958 leegadii ka qaatay teesarahaas ama aqoonsigaas uu ku hayo gacanta sida aad u jeedaan waxana uu soo maray xilliyo kala duwan iyo waaye maamul 1956 ilaa iyo 69 markii dowladdii kacaanku ay dalka inqilaab kula wareegtay waad mahadsan tahay caaqil sheekh axmed sheekh muxuudiin